kulan ballaaran oo isugu yimaadeen dhammaan waalidiinta, culimaawidiinka, waxgaradka iyo dhalinyarada kana dhacay magaalada Stockholm gaar ahaan xaafadda Tinista ee Soomaalidu ay ku badan tahay. ujeedkiisuna ahaa caruurta Soomaalida ee qurbaha ku dhashay kuna barbaaray oo qaar ka mid ah muddooyinkan dambe dilal iyo dhaawacyo halis ah loogu geystay. asoo walwal iyo dareen cabsiyeed ku abuurtay waalidiinta Soomaaliyeed. kulankan ayaa yimid markii dhawaantan laba wiil oo wada dhalatay lagu dilay magaalada Stockholm waqti ay ku sugnaayeen maqaaxi ku taala xaafadda Rinkeby. kadib geerida labadan dhalinyaro ayaa mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sweden waxa ay gelisay dareen. sidee ku dhacday maxaa xal ah sidee baan uga badbaadnaa dib dambana ayna u soo noqonin asbaabaha keenay in la diraaseeyo xulusha iyo cilaajkana lagu dhawaaqo. Habane Abdulqaadir Aadan waa gudoomiyaha ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden. waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii halka ka hadashay Universal TV-na u waramay. magacayga waa Habane Xasan, waxaan ahay gudoomiyaha ururka isbahaysiga ee Sweden. maanta halkan waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo aan sugu yeernay wadaadada magaalada, aqoonyaanka, maamooyinka, waalidiinta iyo aabooyinkaba, oo aan kaga wada hadalnay sidii arrimaha dhibaatooyinka ummadda Soomaaliya ku dhacda aan uga hortagi lahayn kuwa hadda nagu dhacay way nagu dhaceen. dhammaan ka soo qaybgalayaasha madashan oo dood dheer iyo talooyin isku weydaarsaday kulanka dhibaatooyinka la soo darsay awgi waxa ay idilkood ka wada sinaayeen sidii arrimahan la isaga kaashan lahaa meel quraana looga soo wada jeesan lahaa iyadoo lala kaashanayo wax ka qabashadeeda dawladda Sweden. balse qaar ka mid ah waalidiinta ayaa kulankan hadallada ay ka soo jeediyeen waxa ay dhammaantood tilmaameen in dhibaatooyinka haatan ka taagan qurbaha iyo xaaladaha ubadka ay dhaleen la soo dirsay ay waalidiinta qaar ay sabab u yihiin kadib markii dhowr arrimood oo dhibaatooyinkaasi ka mid ah ay xuseen. meeshan isdhignay ayay Soomaali taala keeni weyn soo burburinay kana caruurta mustaqbalkooda yeeynaan kulminin labadan leeyahay horena waan u yiri haddana waan leeyahay waalid kale waxa weeye caruurta $10 u dhiga anaana ka koowa bil walba $10 ha loo dhigo waalidku ha isku yimaadaan markay waalidku isku yimaadaan lacagtaas ururto caruurta xaflada ha la isku dhigo Soomaalidu ha isbarato. Soomaaliyeed maxaa ka dhaxaysa goorma la dhihi karaa labadaas qof ay saddexdaas wax qabanaysa ummadda Soomaaliyeed aniga waxa aaminsanahay waxa ka dhaxeeya guurka iyo geerida iyo luqadda hadda arabsiga waa la wada tagaa dugtana waa la duugaa luqadina waa ku wada hadalnaa laakiin wax tira badan oo tala iyo nacfi ah oo ka dhaxeeya ma jiraan. gabagabadii kulankan ayaa la isku raacay in kulamada noocan oo kale oo looga arinsanayo xalinta iyo ka hortagida dhibaatooyinka taagan la joogteeyo si markaa wax looga qabto mushkiladaha soo wajahaya waalidka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha xilliga tarbiyanta caruurtoodii ku dhalatay qurbaha ay dhibaatooyinka bulshadeed ee ku dhacaya mujtamaca Soomaaliyeed gaar ahaan waalidka walaac badan ku abuuray iyo caruurta labaduba si loo xakameeyo. Abdulqaadir Cilmi Ciise, Honesty, Universal TV, magaalada Stockholm.